shirkan jaraa'id uu ku qabtay magaalada Nairobi gudoomiyaha xisbiga Somali Team for Reality ayaa waxa uu warbaahinta ugu warbixiyay xilligii la aasaasay xisbigiisa iyo ahdaafta loo aasaasay. xisbiga Somali Team for Reality waxa la aasaasay 2007 waxa loo aasaasay xisbi siyaasadeed weeye khilaafka Soomaaliya ka jira oo siyaasaddu aad buu qoto dheer yahay wuxuu jiraa 100 iyo biyo khilaafku waa daakhili waa khaariji dadka qaar baa u haystaa in 20 sano iyo 30 sano uu khilaafku yahay khilaafku waa ka badan yahay 100 sano qarni iyo biyo buu madaxa la galay isagoo khaariji ah isagoo daakhili ah xisbigan waxaan u diyaarinay inuu khilaafka afjaro dhammaantii Soomaaliyana ay cagaheeda isku taagto mar labaad sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Somali Team for Reality ayaa waxa uu ku warbixiyay sidii lagu xalin karo khilaafka daba dheeraaday ee ka taagan dalka Soomaaliya khilaafka meel walba adduunka jirta oo uu riski ka dhaco waxa lagu badbaadiyaa hal arrin laba arrimood iyo saddex arrimood iyo afar laguma badbaadsho waxa lagu badbaadiyaa halka arrin oo ah cadaaladda iyo sinaanta kartida iyo hufnaanta taa macnaheedu markii dhinaca luqadaha kale la aado waxa weeye freedom, justice, democracy, equal opportunity, dignity, respect to each other. That is making meaning my nation and my neighbors too. And that's why I'm running to be next president Somalia. Waxaan fariin gaaban u dirayaa maadaama ay Soomaaliya tahay dal democratic country ku abtirsada cid walba oo isu soo taagta inay ka qayb gasho campaign u gasho candidateada soo socda diyaaleedmo ay wada ogsoontiin bisha 8 diyaaleedmo dawladda ku meel gaarka waa end of waxa la bilaabayaa dawladda Soomaaliya cusbeed oo saxda ah oo hore u arki jireen dadkaas waxaan u sheegayaa wixii aan ka ahayn freedom, justice, democracy, equal opportunity, dignity, respect to each other was too late from now. ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa sheegay haddii uu ku guuleystay xisbigiisa hoggaanka dalka Soomaaliya in ay furi doonaan waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aan ah. Somali Team for Reality all these things way balan garaysay caafimaadka waxaanu furaynaa isbitaallo free no charge oo dawadoodii wata oo qalabkoodii wata oo dhaqaatiirtoodii wata Soomaalida waxbarashada waxaan ballan qaadaynaa qof kasta oo Soomaali oo dhalinyaro ah inuu helo free education no charge even one penny waxaan kaloo idin ballan qaadaynaa in qof kasta oo Soomaali ah muddo xogaayaba aad loo cadiban yahay la soconaa inuu helo ammaan balaaran oo uu nabadgelyo ku noolaado adduunka sida adduunyada kale ay u nooshahay adduunyada kale dadku free xornimo ku noolyihiin Soomaalida dhibkaas baa haysta waxaanu balan garanay waxay kaga bixlayd laakiin idinkana waxa la idinka rabaa hal arrin qofka bini'aadanka maruu rabo inuu ammaan helo oo safe noqdo waa in isaga laga helaa first give them they give you xisbiga Somali Team for Reality ayaa ka mid ah xisbiyada siyaasadda Soomaaliya ee ka jira gudaha iyo dibadda dalka Soomaaliya waxaana magaalada Nairobi ku sugan gudoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Xaaji Cabdulle oo u jooga dalka Kenya hawl shaqo Faisal Caseer Somali Channel Nairobi.